السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا سو دواادو أخيارته آد بان إدين سلامة يا عدكو حنفلة يا والله مغلاه الله يدن بركيه. soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa akhyaarta Soomaaliy meel walbo aad joogtaan Allah idin dhowro adduun iyo aakhira Allah idin dhowro. waan ogahay Soomaali meel walba ay joogtaa meel walba ayay daadsan tahay. Ilaahay waxaan ka bariyay taladooda hal inuu ka yeelo, amni iyo amaan in uu siiyo, in uu dhowro, uu asturo. inteeda xanuunsan ilaahay waxaan uga bariyay inuu caafiyo, inta xiran ilaahay inuu soo daayo. hala sheegareeyo caawa cinwaanka sidaad aragtaan waxaan rabaa inaan dul istaago. runtii cinwaanka aad aragtaan waa cinwaanka ha qaadan dhul aadan lahayn. waxaad ogsoon tihiin in maanta inta badan dhulkeenii la isdhacayo, dhulal aanu dadku lahayn inay sharciyeysanayaan, in garab loo raadsanayo, lacag loo raadsanayo, maxaakimta loo hortuban yahay, sabar loogooyin loo doonanayo. yaa dhul qofka uusan lahayn, yani waxa ayaan daro ah dhul aadan lahayn, adoo ogsoon inaadan lahayn in aad haddana xaaraan kusii raadsatid. shay ayaan daro ah runtii. marka caawa waxa aan rabaa intuu ilaahay iga karsiiyo in aan dul istaago ha qaadan addoonkii allow dhul aadan lahayn. marka asxaabta runtii hala casuumo. in badan baa la dhacay, in badan baa dhulo laga qaatay, imika la isku haystaa, maxkamadaa loo ballansan yahay. anoonan ogeyn wallahi waxaan hubaa gobolada Soomaaliya oo dhan, wadamo yani inta gobol ee wadankeenu uu yahay, inta tuulaa, inta degmo ah, in maxaakimta hortooda berri lafsadeeda qaar badan inay u ballansan yihiin. in la isku haysto dhulal, in la isku haysto dhulal, in la isdulmayo, dulmigana uu soconayo. marka hala sheegareeyo. waa intaasoo kelmad aan iri aan ka ma aragtaayay sido xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam. in qofka daalimka ah dhigihiisa intay ku dhacaan inuu ka haro, inaan maxkamad loo baahanin, laaluush in la bixiyo loo baahanin, miskiinkii lahaa dhulka in loo celiyaa laga yaabaa. marka khayrka lisoo kaalmeeyo, watacaawanuu cala albiri wattaqwa. wanaagga lisoo kaalmeeyaa la yiri. marka heesaha iyo qosolka iyo waxyaabaha fisqiga ah, niikada iyo waxyaabaha ilaahay caragelinaya waad sheegaraysaan. oo maanta waxa waaye haddii niikis aad aragtaan intiina badan waxaad sameynaysaan, waad sheegaraynaysaan, bal kumanaan ruux ayaa daawanaysa. laakiin runtii wax badan baan idin ogahay walaalkiinaan ahay. khayrka mudan in la sheegareeyo, khaasatan arrintan xasaasiga ah ee taagan maanta. intiina daawanaysana waxaa xaqiiqo ah qaar kamid ah dhulkoodii in la haysto, qaar lala tegay, qaar la iibsaday, qaarna imikaba ay iska lushaan. waa dhici kartaa. marka kelmad aan sheegay in ilaahay ugu gargaara laga yaabaa masaakiinta dulmane ha la gaarsiiyo. oo khayrkan waan qaylinayaa runtii, idinkuna gaarsiiya oo walaalaha casuuma oo beejajka ku dara oo intoo dhan wada gaarsiiya. ilaahay haydan wada gaarsiiyo khayrkiisa. walaalayaal, arrintan dulmiga ah runtii waa arrin adduunka oo dhan camimtay. dulmi oo dhanna maanta kama hadli dooni. waxaan ka hadlayaa waa dhulalka keliya iyo waxyaabaha la kala qaatay. dhulalka ayaan dul istaagi doonaa hadduu ilaahay yaraahdo. bismi illaahi araxmaani araxiim. alxamdu lilah والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا لها صومالية ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم
مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ومدرسة خيرك ومدرسة هنونك ومدرسة أقرقاري سيدتك الظلمن ومدرسة علمك ومدرسة إليلكين إنه حريسي الله سبحانه وتعالى ومدرسة حدينو سدب أغرقنو إلهي أكر جينينو إن وماركتاي إن جيو مع الحبيب جنة الفردوس هدو إلهي راد إلهي بانو كبر ينا إليلكين مركا هلا جارسيو ولا الله ودنا هلا جارسيو حفليا إن نوفلا ويسوق قالين ياد باد أمهات سنتهين runtii inta ducada dalbanaysa inta xanuunsan intaynan bilaabin darsigeenan kelmadeenan ilaahay waxaan uga bariyay yani ma wada akhrin kari idaylkood oo hadafkii aan lahaa iyo kelmadeedii aan rabay inaan idin soo gaarsiiyo ayaa xoogaha ma aragtaaye dayacmaysa marka allah idin barakeeyo laakiin inta ducada soo dalbanaysa ee xanuunsan inta arrimuhu si ka yihiin inta culayska saaran inta isbitaalada ku jirta bukaan jiif iyo bukaan socod ilaahay waxaan uga bariyay ilaahay idinkana aaminsada ilaahay waxaan idinkaga bariyay in ilaahay caafiyo caafimaad waa shay muhiim ah runtii waa nicma min nicam illaahi ilaahay waxaan ka bariyay inta xanuunsan allah caafiyo inta xanuunsan allah caafiyo inta isbitaalada ku jirta allah ka soo saara iyagoo caafimaad qaba inta dhaawaca ilaahay ha u boogadhayo in badan baa xirana ilaahay xabiska ka soo saaro in badan baa ubad laga qaatay dadkeenii walaalaheen reer yurub reer galbeedka u qaxay ilaahay waxaan ka bariyay qurato caynka ilmaha ay ku qabowsanayeen ee laga qaatay gaaladu qaadatay allah u soo celiyo iyagoo karaamaysan mucaziziin mukarramiina ilaahay ha u soo celiyo ilaahay waxaan ka bariyay inta lagu soo socdana ilaahay ha ka xijaabo in badan baa runtii xiran allah ha soo daayo in badan baa maqan allah ha soo celiyo ilaahay waxaan ka bariyay qof walba oo maaragtaaye i arkaya iyo qof walba oo i dhageysanaya iyo inta ay gaadho iyo inta aanay gaadhinba ilaahay waxaan ka bariyay muraadkooda allah u sahlo muraadkooda allah u sahlo muraadkooda allah u sahlo khayrka waa ka lagu liibaanayo wallahi khayrka waa ka lagu liibaanayo ilaahay waxaan ka bariyay khayrka ilaahay haynoo camimo khayrka ilaahay haynoo daa'imiyo mid weligii jira allah inooga yeelo culimadeena allah inoo asturo cizigoodii sharafkoodii allah u ziyaadiyo ilaahay waxaan ka bariyay khayrka inuu ilaahay inoo daa'imiyo idaylkeen aynu ka wada shaqayno khayrkan waa khayrka loo baxsanayo maalinka qiyaamo waa khayrka aynu adduunka ku helayno wax walbo aynu u baahannahay waa khayrka aynu ilaahay ugu dhowaanayno waa khayrka aynu sacaado iyo farxad ku helayno waa ka mustaqbalkeena adduunyo uu ku hagaagayo waa kan laynoogu dambi dhaafayo waa kan maalinka qiyaame ilaahay hortii aynu maaragtaaye xisaabta ilaahay inoogu fududaynayo miisaanku inoogu cuslaynayo jannatu lfirdowsna maca alxabiib sala allahu calayhi wasalam aynu rajaynayno inuu ilaahay inoogu geynayo laakiin qof intuu isa soo qaawiyey dharkii iska soo dhigay madaxii soo qaawiyey dharkii ka soo tegay bool bari iyo rinji iyo maaragtaaye qurun isku soo dhoobay ya haddana sii caytamaya af iyo adinba ya inuu intuu halkan idiin soo fariisto idiin qaqayliyo idiin caytamo aada sheegaraysaan taa khayr ma aha inta badan dulmiga ina haystaa iyo waxa ina saarne culays ana taasay ka dhalatay in dul banaanka loola soo baxa macsidii ilaahay in macsidii ilaahay banaanka lala yimaado waxyaabaha ilaahay uusan cafinin weeyaan gurigaaga dhexdiisa wixii kaa dhacay ibliis kugu sibqiyo waa la gartay oo aad ka laabatid ilaahay wuu ku dhaafaya wuu ku cafinayaa ilaah wuu ku cafinaya si walba ha u weynaato shirkiga ugu weyne ilaahay wuu kaa cafinaa haddaad ka laabatid haddaad ridowdid ilaahay wuu kaa cafinaa markaad soo laabatid hadduu ilaahay ku waafajiyo laakiin ta lala soo baxa banaanka lala yimaada wixii qariya la yiri ma qarinayna inta la yiraahdo halkaa la isruxo baradii la ruuxo balaayadii la ruuxo gaadihii la ruuxo madaxii la ruuxo ya يعني وحواي أو هذانا لسكسي دوب أو اللي هي أصحاب تيدا شجرية سارة بس كانت جرية اللي يرهن معنى هذا وحويان
cadaabkii toddobada cadaab ee maaragtay jahannamo u weyn tahay ku sheegareeya war igeeya cadaabkii igeliya igu tuura macnaheedu taas weeyaan wallahi inaan dhimanayo sidaan u hubo ayaan u hubaa macnaheedu sidaa inuu yahay ya macnaheedu sidaa inuu yahay marka ilaahay aynu ka baqno sharafkeena aynu dhowrno cirdigeena aynu dhowrno jirkeenu waa qaali ilaahay xubnaha u inasiiyey waa qaali mawduucaygana kama bixin runtii waxaan leeyahay in badan dadku ha soo galaan maxaa wacay mawduuca aan rabaa in aan baraarujiyo waa ku celinayaa waa ha qaadan dhul aadan lahayn ha qaadan dhul aadan lahayn waa cadaab weeyaan raalli ahaada marka kaa ayaan doonaya inaan baraarujiyo marka ilaahay aynu ka baqno waxyaabaha aynu sheega gabadhaa isruxaysa iyo wiilkaa isruxaya geesaha xiiran ee dharkii ka dhacayo ee qaylinaya ee sidaa ku qooqan aan waxba maqlaynin ilaah aqoonin nabi aqoonin diin aqoonin ya ee ibliiska xero ugu jira ee qaylinaya ee meedhiyaha daa'iman dul taagan ya waxa uu samaynayo way kula xun yihiin dabcan waxaad u fiirinaysidna waa waalidiisaad eegaysaa laakiin markaad sheegaraysid khalaas ilahay wuxuu leeyahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha dul istaagin waxaadan aqoon u lahayn waxaan waxba danba kuugu jirin ha dul istaagin haddaad dul istaagtid indhaha iyo dhegaha iyo qalbiga waa lagaa xisaabinaya waa lagaa xisaabinaya yani ma sheegaraynayo laakiin waa iska eegid lama rabo dadkaan lama daawado lamana fiiriyo waxaan idin sheegayo o dhan waa waxyaabo runtii khayr idin ah waad ogtihiin waxaan runtii daa'iman jeclahay waa khayrkiina waxaan jeclahay waa wanaagiina waxaan jeclahay waa cizigiina waxaan jeclahay waa sharafkiina wallahi khayr baan idinla jeclahay adduunye iyo aakhiro nabad iyo nolol ayaan idinla jeclahay mustaqbalkiina inuu hagaago ayaan runtii jeclahay marka runtii yaan la gacan bidxaynin diinta islaamka yaynaan gacan bidxaynin marka in yar meelaha sawir inta la sawir islaamka la caayo waad kacaysaan waad ogsoontihiin taas keliya maahane waxaa la rabaa in aad noqotid muslim baa la doonaya inaad noqotid muslimka waa in afkaaga iyo adimadaada laga nabad galo taasaa muslimku yahay muslimka dhabta ah waa taa marka ilaahay haydan cizeeyo ilaahay haydan sharfo mawduuceeni baynu u gudagalaynaa runtii mawduuceena dadka iminka nagu soo biiray waxaanu leenahay wuxuu ahaa oo aan ugu magac darnay waa ha qaadan dhul aadan lahayn walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala weliba waxaan aada u jeclaa dadka dhulalka haysta dabcan qaar baad garanaysaan iyo dadka laga haysto ee aada garanaysaan inaad ku sheegaraysaan si ay u maqlaan waxaanu rabnaa hadal keliya maaha ficil baanu rabnaa kelmadaydan markay dhammaato hadduu ilaahay yiraahdo ilaahay haya fududeeye sida sawaabkaana allaha ku duwa carabkayge kelmadan markay dhammaato waxaan rabaa xal inuu yimaado in badan dhulalkoodii in loo celiyo maxaa yeelay waana ogaho kelmadan meel fiican bay dhacaysaa in badanna dhulalkoodii waa loo celinayaa waa hadday maqlaan dadka dhulalka qaatay wallaahi waa hubataa sababtoo ah qalbiga wixii kasoo baxa ayaa qalbi kala gala laga yaabee kelmadan oo ilaahay dartii aan u dhahayo runtii aanan wax lacaga ku qaadanaynin social mediana aanan lacag uga rabin youtube-na aanan gelinaynin oo maaragtay aanan tictayar aanan shilin ku raadsanaynin ilaahay dartii baan u sheegayaa ciyaalkayga waxaan uga tegay waa ilaahay dartii waxaan u qaylinayo waa ilaahay dartii nalkaan ihaya waa ilaahay darti waktigan wax kalaan qabsan lahaa waa ilaahay darti dulmigaa saaran dadkayga runtii aan ka dhiidhinayaa marka qalbi baan ka hadlayaa waxayguna qalbi bay kasoo baxayaan waxa aan ku dhawaaqayana waa wax ka sugan afkaa udgoon ee xabiibkeena ku salli xabiibkaage sala allahu calayhi wasalam marka arrinku wuu isqabanayaa marka
ilaahayna in badan buu maaragtaayo kusoo leexinaya oo dhulalkii uu kaga soo celinaya. Ha ka bakhaylin marka adigu. Anigu hadalkayga iyo cilmigayga bakhayli maayo, la gaabin maayo. Adigu inaad gaarsiisid walaalka oo aad xataa u sheegaraysid oo aad u duubtid oo u seefgaraysid oo aad u gudbisid marnaba ha ka gaabinin. runtii inta ilaahay aniga aan ka rajeynaya xasanaadii ajir ah in la eg ayaad adiguna ka helaysaa. marka aynu khayrka annagoo isku duuban isku qalbi qof keliya ah oo liidirkeed aynu khayrka ka wada shaqeyno waynu guuleysanaynaa insha Allah ta'ala. mar kale waa madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. madrasadan hadda waa ma aragtay mobile meeshan taga baan kaga dhawaaqa, laakiin insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa ardul waaqica in aan keeno oo aan dhiso oo aan runtii in badan oo dhalinteena ahna runtii aan ma aragtay halka aan ugu sameeyo wacyigelin hadduu ilaahay idmo. walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka u dhahayo ya ayuha alladhina aamanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil baatil. dadkii alle inabi rumeeyo xoolihiina maalkiina dhexdiina xaq daraha ku cunina. yaanu walaal cunin walaalka kale xoolihii bigayri alxaq, xaq la-aan yaanu ku cunin. waxa la cunaya ma aha wax afka un la gashtay ogow. aayaddan waxaan usoo qaadanayaa dhulalka la kala cunayo, dhulalka la kala qaadanayo, la isku dulmayo, la iska iibsanayo, la kala leexsanayo ayaan usoo qaadanayaa. xoolo weeyaan, dhulku waa maal weliba qaali ah weeyaan, ma guurto weeyaan. maalka walaalka ha ku qaadanin xaq darro, ha ku cunina maalka walaalka, xoolaha walaalka gardarro ha ku cunina. yaa dhahaya? ilaahay baa ku dhaariyay. yaa dhahaya? waa Allah subhanahu wa ta'ala. waa ilaaha ku abuuray kaa wax dhacayo, waa ilaaha ku haya noloshaadan adduunka ku haya, waa ilaaha dhaqdhaqaaqaaga haya, waa ilaaha aanan ku faaruqin, waa ilaaha malaa'ig kuu saartay halkan, waa ilaaha neeftaada oksijiinta iyo kaarboonka kala bedelay, waa ilaaha habeenkii iyo maalintiisaad ku nooshahay, waa ilaaha ku siiyey caafimaadka, waa ilaaha indhaha ku siiyey qaaliga adduunka oo dhan ka qaalisan, sankaa dherere qurxoon, dhegaha qaaliga ee geesaha ku yaala, bishimaha, carabka, ilkaha. waa ilaaha gacmaha ku siiyey, lugaha ku siiyey, caqligan ku siiyey, ilaaha nolosha ku siiyey. ilaaha in badan oo khalqigiisa kaa fadilay ayaa wuxuu ku leeyahay ha ku cunina xoolaha dadkiina, walaalihiina xoolahooda, xoolihiina dhexdiina gardarha ku cunina. waa ilaaha ku qaban karaaya, waa ilaah hadduu nicmo yar oo nicmooyinku ku siiyey uu kaala noqdo af labadii aad dhawaaqaysid adduunkoo dhan hadday isugu kaa yimaadaanna ayan kuu bedeli karin oo aanay ku siin karin. war ilaahay ka baq, ilaahay ka baq. kaa dhacaya dhulalkow ilaahay ka baq, ilaahay ka cabso, ilaahay ka baq. waad dhiman karaysaa mar walbaa, nafta kaa bixi karaysaa. naftaa kaa bixi karaysa adigoo hadda dhacay, bixiyey laaluush, dhisay, aanan weliba intifaacsanin ayaad dhiman karaysaa. haddaad dhimatidna axaadiista aynu sheegi doono ayaa ku qabsanaya. haddaad ogeyd tan ha kuu noqoto degnin, ha kuu noqoto xusuusin. haddaadan ogeynna cilmi ha kuu noqoto hadda baro. walaalayaal ilaa ma aha dadka wax dhacaya oo dhan cilmi la-aan iyo jahli inuu u geeyey. in badan iyagoo ogsoon ayay dhacayaan, bal qiil ayay u samaysanayaan. qaarna ghafla ku jirto, qaarna ghafla ku jirto waanay ogeynba waxa ay samaynayaan. ilaa uurkoodiiba xaaraan daday, qalbigiibaa madoobaaday. kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. halkaas waa madooba, waa meesha wax lagu kala garto. dadka waa un socdaa, sawirku waa insaan, waa hebel iyo hebel, waa eede iyo habaryar, waa adeer iyo abti, laakiin muuqaal unbaa insaan ah. laakiin uurkii iyo garashadii waa xoolo, bal xoolahay kasii daran yihiin.
xoolaha ayay xaggaa kasii jiraan waxa dhahayana waa allah ilaahay yaqaana qalbigaaga iyo uurkaaga iyo waxa aad ku noosha iyo waxa aad tahay ha waa xoolo ancaam geel iyo lo iyo ari geel haddii maanta dhan la dhawaaqayo muxuu ka garanayaa ma garanayo geela marka waa geel iyo lo iyo ari ayaa la yiri bal kuwan waa la listaa waa la dhaqdaa waa la cunaa waa lagu intifaacaa waa la rartaa ya waxoodo dhan baa laga faa'iidaystaa laakiin kan maxaa laga faa'iidayaa waxba marka in badan jahli ha u geyso tan xusuusin ha u noqoto cilmi ha u noqoto inta garanaysa halmaansana qafladana xusuusin ha u noqoto gaarsiiya lacag ku qaadan mayno lacag wallahi aan ku qaadanin ilaahay baanu uga rabnaa lacag laakiin ajarka xagga weeyaan annaga runtii waxaan nahay reer aakhiro wallahi adduunka inaanan waxba ka rabin adduunka nicma ilaahayna siiyey nicmo ah in aan xumaantana reebno wanaagana farno ya ayaa ilaahay ina siiyey marka wax kaloo aan u baahannahay male mar hadduu ilaahay aan u dhownahay ilaahay aan isu dhoweysiinayno ilaahay aan jecelnahay ilaahay aan baryayno duco aan wadno ilaahay qof haystaa qof ilaahay tala saartay qof ilaahay isu dhoweeyey ama ilaahayba u dhow waxaa waa ciduu u baahan yahay male marka idaylkeen ilaahay haynoo dhoweeyo ilaahay haynoo dhoweeyo kuwa ilaahay u dhow allah inaga wada yeelo idaylkeen cidaan u baahanayna ma laha marka walaalayaal ha la gudbiyo cid walba ha la gaarsiiyo marka ilaaha adiga ku abuuray weeyaan kan ku dhahaya xoolaha dhexdiina ha cunina xaqdaraha ku cunina waa diideen marka in badan way diideen xoolihii bay laba laqaayaan iyagoo ogsoon in ay xaaraan tahay gacantaa u taagan 24 saac ha ma fiirinayaan ma xalaal mise xaaraan guryihii baa la kala dhacayaa bedadkii baa la kala dhacayaa boosaskii baa la kala dhacayaa jagooyinkii baa la kala dhacayaa madaaristii baa la kala dhacayaa masaajidadii baa la kala dhacayaa culimo iyo caamaba arrinkii waxaa waaye waa wada galeen waa wada galeen laakiin ogow markaa wax dhacaysid hadhihin laguma arko laguma arka marnaba qalbigaaga yaanay soo gelin iska dhac waxaa rabtid laakiin qalbigaaga marnaba yaanay soo gelin oo doqonnimo kale ilaa doqonnimaa ku qaaday oo xoolo aadan lahayn baad dhacaysaa ilaahay baad iska qarin weyday ka xishoon weyday taladiisii qaadan weyday laakiin haddana doqonnimo kale yaanay ku qaadin oo ha isdhihin laguma arka haddaad wax dhacaysid adoo ogsoon in lagu arkayo xoog ku dhac sababtoo ah ilaahay wuu kuu jeedaa kaama qarsoona ilaahay marnaba ha isdhihin kuma arkayo har iyo habeen ilaahay wuu ku arkaayo bal waxaadan adigu ogeyn buu ogyahay uurkaaga wax ku jiro aadan ogeyn ayuu ilaahay garanayaa kow ilaahay wuxuu kaloo samaystay si aad xoogo aan kugu soo dhaweeyo malaa'igo halkaa fadhiya halkaa garbaha raqiib iyo catiid aanu ku faaruqeynin qorayo wax walbo aad dhehaysid wax walbo aad qabanaysid qorayo wuxuu ilaahay kaloo samaystay maqaarkaagan aad arkaysid maqaarkaagan jirkaagan ku dahaaran adiga oo dhan waxa kugu dahaaran ya kul indhaha baalashooda bishimaha sankaas waxa kan dhigaha halkan waxa kan oo dhan waa camera ka casrisan kaamerooyinka adduunka bal ilaa qiyaami saaca ilaa adduunka la rogo horumarka iman doona technology-ga iman doona ka casrisan ayuu ilaahay leeyahay waa maqaarka wuu duubayaa wax walbo aad qabanaysid markaad faraha taagtaagaysid indhaha taagtaagaysid afka ka qaylinaysid ka uburinaysid been iyo balaayo aad shubaysid waraaqaha beenta maxaakimta aad ka saxiixaysid ama aad u gooynaysid waxaasoo dhan waxaan waa gacantii aad ku goosanaysay xaaraanta ayaa camera ilaahay kaaga yeelay oo ku duubaysa maalinka qiyaamo اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون إلهي بان كداريك أفك ولا دبولا كان ما أنت أتكو قوستي حاران تبريكم قوسيني يسد ولا حريا ما غشان ودقيه هنا فرع لك تان انت تجلسان تان يعني كبحن
qalbiga geliya oo walaalihin gaarsiiya afkan aad xaaraanta ku cuntay ku goosatay ku dhacday ku dulmisay walaalka kaga xoogtay xoolihiisii waa la xiraya watukallimuna aydihim gacmihi baa la dhahayaa marka hadal waa gacantii wax saxiixaysay gacantii dhisaysay dhulka xaaraanta ah gacantii rijeynaysay guriga xaaraanta ah gaariga xaaraanta gacantii waday hadal ayaa la dhahayaa ilaahay baa ku dhaariyay sawir ka dhow ama wax lagu fahmo oo kan ka fudud oo ladinsiin lahaa muxuu yahay ya waa ma jiro gacantii aad wax ku goosatay ee aad lacagta ku tirisay ayaa hadlaysa maalinka qiyaamo lugihii aad ku aaday halka xaaraanta ku geeyay ayaa markhaati noqonaya watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun allah allah alla insaanka qiyaamihii waa usoo dhowaaday iyaguna gaflay ku jiraan gafla ayay ku sugan yihiin iyaguna ya marka walaalayaal rasuulkeena suuban ku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam rasuulkaaga waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam wallahi 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 laa ya'khudu axadu minkum shay'an bigayri xaqihi ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaamah laa ilaha ila allah لا إله إلا الله يا إنا لله وإنا إليه راجعون dadka aan la hadlayaa waa mayd wallahi intooda badan waa mayd dadka aayadahan maqlaya dhulalka dhacaya wallahi waa mayd aan waxba maqlaynin maxaa wacay qof maydku wax ma maqlo maydka haddaad quraanka oo dhan ku akhrisid ma maqlo war eega xadiiskan ila eega ilaahay baan ku dhaariyay eega ila eega xadiiska والله بولي حبيب كينا صلى الله عليه وسلم وحو كدارنا يا وحو دارنا يا حبيب أن أباهنين دار إن هو إلا وحي يوحى إيك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كنا واقوه هودي سكما هذا ووحي هذا كان هذه شيء وإن كنا واقوه ووحي ووحيين بالي هذا قرآن كيس النظر حديث كان وحديث حق الله كيمي لو ديبي الرسول لكن إساقا كنا واقيا والله أيوليه يو دارنا يا سيدا دو دار يا أباهن قفك وح إنكريا كان مدح هذا معان جاء أنا آمنين هذا سفدت كو آمنين أيا لو دارتا أو توكيد إلو كينا هذا الله وحد كيا برهاني حج الله كينا والله والله أيوليه حبيب كان صلى الله عليه وسلم ما قاتو متكين شيء حق أوصن أولهين إلا وي ما دا مالك قيام إلهي إلا قفل بإلهي بولا كل مياي إلهي بولا كل مياي إساقو وحي حق درد وكقاتي أدونك نبرك كسد أيولا كل مايا إنا لله وإنا إليه راجعون يا إلهي من كل هذه ما عواقب كحن باجرتها يا حداد نمتد أضو حول ولا الكاقات حداد نمتد أضو دول ولا الكاقات إلهينا أد أكسونتها أو أد لاذا هذا إذا ويدي إذلك وحد لاذين ور إلهي ما الله كل ما يسان هرت بدي من يسان ها كل نفس ذائقة الموت ما الذي آسيا ها قبر جواه وشيء ما إلهي الرسول إلهي وينوجري وواجب وكو ما الصوصاريا ها أو أركان الإسلام إيمان كويان مالك قيام إيمان ها إلهي ما الهرتجيا ما السويدين والمحل سويدين يا إلهي هرتي مركي إيش وعلى سويدين يا شون تون مالك قادي إلا مالك دمتي أف يدي محيات قوستي حلالي حارم ولا سويدين ما حاران كليه بل حلاش السويدين يا مالك وحالة تجنانا يا كنتم كن أو سنو كنتم كن أو سنو أي لتجنانا يا 50,000 سنة هل سويدنا يا هل بالسو حسابنا يا والله أيو لي حبيب كان كسل حبيب كاي صلى الله عليه وسلم والله متكين ما قاتو دول حق اوسن اولهين الا وحو لكل ما الهي اسغو وخيس وروحا انت لوغا تغي مايو markaad maanta guri qaadatid aad baydhabo ka qaadatid oo aad burco ka qaadatid oo aad hargeysa ka dhacdid oo aad xamar ka dhacdid jawhar ka dhacdid kismaayo ka dhacdid war waxan adigu uur weynida
ورمس الروح باته ولا قصي قناع سنة يدلولك إلى دعاء هدنا ولا قصي إيبنا يا دتك وروحان ودنا أد أرورينيس أواجي لساق حي سياسي كوجي إلى إيمان تلقدي أليس دوام مرينا دتك أوينيان قار نتين قار إيه ماركتاي بنانك مالها بعيال ماركتاي ماذا حصارته بولل كجر لو كودي لا دعاء وروحان محمد سائني هرايان أو دتك إذا كون ري واحد دعاء أو دتك إذا كون ري حولها دعاء أو هبل بادن تو تقانان هبل بادن عثماني علي فارع دقي عاشر ووكسونتي دول كانوا ويكتغ وروحا واحد الراعي ما ميزان كان اذن فولا حساب اخر يعني ما حسنات بل واذا راعيان بل والله قبري اذن لقلايان طبعا دول والله قبري دولك عادي حتى معها بل دولك aad dhacday shibri haduu yahay taako todobada dhul ayaa lagu gooynaya soo ma ogid todobada dhul ayaa lagu gooynaya Ya'la ibn Murrah saxaabigan jaliilka radiyallahu anhu wa ardaah iyo maaragta oo waliba xadiis oo rasuulku u leeyahay ana ka maqlay xabiibka sallallahu oo silsilada saxiix ibn Sheikh al-Albani Allahu naxariistay uu ku soo aroorinaya Ahmed ibn Hanbal Imam Ahmed ibn Hanbal Imam ahli sunnah wal jamaa ayaa maaragtay soo ayaa weerinay oo Ya'la ibn Murrah ka weerinaya Allah wada naxariisto Allah ka raali noqdo ideelkood iyo culimadeena oo dhanay wuxuu leeyahay ana maqlay Ya'la ibn Murrah waxaan ka maqlay xabiibkayga ku salli xabiibkaaga sallallahu alayhi wa sallam waxaan ka maqlay xabiibkayga oo uu leeyahay qof walba oo dhul ku qaata xoog shibr taako qofkii xoog ku qaata ilaahay wuxuu maalinka qiyaama uu ku kalifayaa وأول مالك لصوصاره وحوكو كلفايا أو دوشي سيلايا إن أوقظ دولكي إلى إيوتن تضوبات أجي إلى بدكو داري حديثكا هاو مالين دولك أنت لو وجود الضوبة معناها إن ملائكة صاروا جنس أداء قضايا دولك أد حق دردكو قادتي أداء قضايا ورمت تضوبات دول ودوكسونتين أنت دولك إلهي الإكيسي وأن لجاري كرين هدات بقول كن أو سنة يا وانقذ هذا آدم جاري كان أود آدم أولا هين يا ورمحات غرت إلهي وحوليه رسولك حوله صلى الله عليه وسلم إلهي وحوكو كلفا يا قفك ملك شبريا تاكذا دعي وحوكو كلفا يا إن أوقظه ملك إلى ملك قدام بيا أوجارو كذب أيا وحلو قد دوبا يا قارتا لغا سارايا حاجات جايين إسامر كيشك نولك آد ولال كانوا أدي ودقوا آد نعدي آد كقادتي بل قاركود انت لغو أمان سدي درس أهايين إني أدوران وحق ولال وكله ولال كي انتو كدعي لعكو عني أما الدقي أما الدشيبة أو تاب سدي أدي لي ولال كي يا ورنول كان آد ولال كقادي انت أدون كان كو انتفاع دي أو آد دقانهتد إن لقاقة تقيم يد أماليس ماي waxaad qaadaysaa hadii uu yahay 1 mitir iyo nus mitir iyo taako iyo wax ka badan haduu yahay baydhabo oo idil xamar oo idil jawhar oo idil kismaayo oo idil burco oo idil meeshu doon hargeyso idil wuxuu doon ha ahaade ilaa iyo 7 dhul ayaa ilaahay uu ku leeyahay u qod xad sameynaysa ilaahay baad ku dhaariyay war hala fiiqo hala baraarugo هلا برارو نفس هذا الميل وكوسو جرت مقرنيس إمي ساد أركتن إلهي بدن كل داريه إذن كو دد بدن يجو حد لاي ننتين دد إذا عداه جو أو حد لاي خليه هذا القشم بإيش يجا قاله يجو حد لاي أي مارك تايب ننتين يجو قايلنا أي ننتين يجو عيار أي ننتين إمي ساكو بد عياريس مصارعة يرسل عياريس أو ننتي إلهي بدن كل داريه marka nafsadaada damiin uma haysatid garantiin uma haysatid adiga waxaan kula rabo waa khayr waxaan kula rabo waa wax qalbi walaalka inaadan dulmin qalbi walaalka murug inaadan gelinin adigana murug aadan isgelinin cadaabna aadan ma aragtaay isu diyaarinin waxaan rabaa waa dad walaalo ah oo wada nool inaan noqono ideelkiin ya marka
inta loogu duduubayaa asagaa waxaa la dhahayaa intii aad dhacday qodo ayaa la dhahayaa kadibna qoortaa loo saaraya ma qaadi karno wallahi inaynaan qaadi karin bal iyadoo cadaaba weliba yacni dhulkaa lidin keeni maaye dembigii dhulkaasaa madaxa lidinka saaraya cadaab baad ku tegaysaan marka cadaab ma la qaadi karaa ma la xamili karaa war cadaabkaa fududaysanina dab islaan shiday ma aha cadaabka lagu sheegayo malaa'ig ilaahay baa shiday malaa'ig ilaahay baa shiday maaragtaaye ya oo aad garanaysaan awoodooda iyo quwadooda iyo xoogooda aad garanaysaan oo ka waaweyn 7 dhul iyo 7 cir ya ka waaweyn iyo inta u dhaxaysa ayaa waxaan shiday war iska ilaalino aan iska ilaalino dulmiga inuu ilaalino wuxuu leeyahay xabiibkeena salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين قفكي غوستا حق در الشبر تاكو دول قفكي حق در كو غوستا إلهي با قورت وقود الضوبة يا مالك قيامها تضوضر دول أيا لو غوينايا انت قادتي كليا ما انت قادتي ما هي انت تضوضر دول انت قادتي انت كهوسيسا إلهي تضوضر دول أيا إلهي قورت وقود الضوبة يعني dembigooda qoorta lagu saaraa macnaha dembigooda ayaa qoorta lagu saaraa marka wax la qaadi karaya wariyayna fududaysan baryahan waliba eeg ilaahay baan ku dhaariyay nin baa yimid markaas wuxuu yiri oo ii sheekeynaya wuxuu yiri deegaankaas aan ka soo jeedaa deegaan walbana waa sidaas laakiin isaga markii deegaankiisu ii sheegay idinkuna deegaan walba aad ku nooshiin waxaad leedihiin oo waa un deegaankay sheekh maanta wuxuu ka sheekeynay waxa wacay xumaantii baa fiday wixii baa isu ekaaday meel walba dulmigii waa gaaray ya uu gaaray intaan culimadu ay ka hadlaan laakiin ibliis baa naga tambadiyay wuxuu yiri maalinka ugu horeeya dadkan dhaalimiinta waxay ku tafanuneen oo ay aad u barteen dulmigii ayay barteen إلهي بأن يقول يا رسول كان وحول صلى الله عليه وسلم وإلهي وكل هاي وقل ربي زدني علما إله علمي يكرني كوان إله حرفت يكرني أو كل إلهي كد عيسنا مالن بحالات بيك هنا يعني أول هدي سلو قادين جري هذا يقري يحوق بوب دع عشان تاس مارك لو قادين جري وحواي هذا بوسكي مبالة تجايا بوسكي مالن تهر ولا سوء دينا هديبا جع لقديه واي شرك لقديه واي لقى عيرين واي بوسكا يا مالك لواد رجحاني أوضو كان سنة وحرنا مركا أديك واحد وكوغاني سالجوسو شيء بوسكاجي والله أوتي أو يا أوتي بوسكا وابا علو هاي يا أوتي بوسكي مركا صاد إيماني سا مش استجاب نحتاجه ور بوسك قالوا حيلين أنا قابل لهبة درسك واحد السيسي أما درسك وعدوضة كاسو حليه بوس كان أنا بل أبهي أووجي أبكوجي لها أنت بكل شيء يعني ونوسي كاته بوس كأنا له وجورجي أدوك كم دلنا أنا كل شيء هبلايا كلالتي هل كان هو يدي أبهي بسكو أروسي هل كان وجورجي جورجي أنا له ما يا أنا له محوك قارنا وحيكون دونايا بوسكا مركي قبصدان كدب وانه غوريغا انيغا مليه لكن غوريغا حد انا له maxaa wacay waa iibsaday lacag baan kala baxay $7,000 guriga kala baxay $50,000 lacag buu roo walaalkii inuu ka dhaca markaas dadna u diyaarsan yihiin wanoo guriga suugu leeyahay marka hadaadan aaminaynin marxaatiyaal odayaalka magaalada ugu waaweyn aan ku keenayo wiilku wuxuu leeyahay marka 10 oday oo kuwii ugu daada waaweynaa magaaladu keensanaya marka odayaal waliba waxaan aad iyo aad ula qoslay yani ninkan runtii aad aan u ixtiraamayo waa nin mawsuuqa lagu kala soon yahay waliba wuxuu ii tilmaamayaa odayaalka uu keensanayo qofkan guriga dhacaya dulmiga ku dhacaya ee tuuga dadka uu keensaday wuxuu yiri odayaal 80 jir waliba wiilka intuu isgaabi oo lugihi qalloociyay ayaa wuxuu yiri odayaal saan u socod sidaan yani da oo indhaana lahayn oo bakoorad ku socdo saddex lugood la ayaa maaragtay markaasay
حتى قورت مسو قادي كران وداء ويسوق اللعدين طور بيشين يا عندها محكمارك مركاسو دار مرايا دار أيو واتو بنيو annaga ogeyn waagu intu ku dhalanay ama annaga ogeyn oo marxaati ahayn markuu gadanayay markuu gadanayay gurigan heerkaasan gaarnay hatta ma aha dhalinyaro ma aha oo la dhahayo dhalinyaradan waxba diin ma laho waa iska jaahiliin wax ma la dhahay ma aha hunguriba ogeyn orbaanta labsadeeda iyadoo ay xun ilaahi wuxuu la yaabaa wiil dhalinyaro been sheegay laakiin wuxuu aad ula siyaabaa nin oday ah oo u dhow isaga ilaahay ila odayaashu waa nooga dhow yihiin ilaahay kan 60 70 jira iyo kan 20 jira kan 60 jirka runtii in badan ilaahay nooga dhow ka hor gaaraya lama oga laakiin dhowaansho 60 sano ilaahay u socday maxaa loo baahnaa inuu toobad keeno inuu maanta wallahi u dhaha oo shilimaad yar waxna laga siin maayo 70 kun 50 kun laga siin maayo waxa la siinaya $100 ama $50 buu odagaas wuxuu u marayaa diintiisii iyo sharafkiisii cizigiisii uu u dhacaaya oo uu maaragtay u iibsanaya aw damiirkii ilaahay bad ku dhaariyo wiilka yar ee zaaniga ee zinaysana ilaahay ma jecla laakiin wuxuu ka sii necab yahay ninka odayga ah daa'iman dambigu waa kala weyn yahay dambiga wiilka dhalinyarada uu galaa isla dambigaas nin oday hadduu galo ilaahay waa uga weyn yahay ilaahay waa uga weyn yahay marka walaalayaal markaasa waxaan tagay buu yiri xamar nafs shay odayaal baan kala hadlay warniyo sidaasaan ma aragtaayay ee dhacdo xaal yiri intaas in la eega taala halkan bal inta ka daran maxaakimtu waa fiican yihiin alxamdulillah maxaakim baa ilaahaynaysa maxaakimtii xaqaagii markaad wixii cadeeymiisiisid waa lagu gooynaa laakiin tanfiidkii aaway kusoo noqnoqo maantuna adigu maxaakimta war maxkamadan ha fiirinina ilaahay ka baq indhow garad ha noqonina masaakiintan waxay arkaan ee daliil iyo cadeena un bay kala gooyin karaan ay kala maaragtay xukumi karaan aaway maxaakimta ilaahay war aaway maxkamadii ilaahay ka weyneed ilaaha dhahaya subxaanahu wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama miisaan cadaalad caadil iyo tanfiidkiisii weliba wata ma aha dhulka ninkaana iskale adigana daalim baatay ka tag meesha ma aha bal daalimkana la cadaabayo ninkana xaqiisii la siinayo malaa'iga jooga meesha wartaas ma ilowsan tihiin hadduu aabbaha madaxweyne yahay ra-iisul wasaare yahay ra-iisul baarlamaan yahay wasiir yahay maxaakimta u weyn yahay sabar looga markaad 100 dhul u samaysanaysid masaakiintii aad hilfaha u qaadaysid aad cayrinaysid war waxaan waad ka tagaysaa adun baa culays qaadanaya jahligaaga fiiri taa ka dhula la yiri wuu la imaanayaa maalinka qiyaama bed 20 mitir square ka war 100 mitir square ka war oo aad weli magaalada 10 meel aad wax ka dhacday magaalo walba 10 ka dhacday bal aad baadiyihii beerihii u dhacday falxum oo kuna saaxina walaalkaabana waxaan ka rabo mal wallahi nalka madaxu xanuunjinaya wallahi waa qaylinaya فهمسا كل الباقي هي لكن انت صوتنا وحا اهريا وجعيلا كوقب ولا الكابانا وحان اوغاهي ظلمي كان يدور كان لك لقاتي اي ظلمي ولا لهنا ظلمسان حداد كل متان هلك ادجليسان والله وي سويرنتاي يا على علك ددك والله وان ارك وحان مغلا ايغو على علايا والله ايغو على يد مودائنا المغل محاوى يا حبيبك دحي صلى الله عليه وسلم وعيدين شيء وهذا الحبيب أنا وآخر ما ننتقل لكن حبيبك كان آمن سنة مد halkay u saaran tahay neef ari ah oo ciyaaya neef geelo ololaaya neef lo oo qayl eeg sida la inoogu sawiray oo leeyahay ya Muhammad ya Rasuul Allah ii gargaar iga rid culayska oo aan ka ridi karin oo aan dhahayo soo anigii idin sheegay ma ah waxaan sheegay ma aha hadalkayga kaliya anigu rasuul baan ahay idin soo gaarsiinaya hadalka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ilaahay inuu ka baqno waxaan wax dhacayo weeyaan dulmiga meel walba u yaala marka aad $50 ama wax ka yar aad dhaar ilaahay u maraysid
وقال لنا والله إن كان إسقى أنتو كل شيء إسقى أبيه وكرنحله أما هو يبسده أنت سكبحيه أظهر قريجاير حدونا جيب كيسي لغة أنت تلقشت جيب كيسي في رنيس كسروا آدم كقن عينه وكسيني هذا كرالي أحد يا الدون كاجن يبسد نن حوله رافسه إلهي محوكليه إلهي محوكليه أضياش الله ضلايا أو شهادة الزور كقول الزور كتفنني مالها محاكمها تاجن دولارك لا دعي دول تاجن دهيا مكومر خاتي فراه دهيا كرات سدا المهود كبيش كن نول بكدك تي مرخاتي بيناله يقول الزور شهادة الزور أي الله ضلايا إلهي وحود ليه مغلى دقيهنا فرا حرام بعد الدية فرا دقيهنا odayaal how fura dhigihiina xaaraan baa laabtiinii madoobaysay fura dhigihiina waxba kala garan maysaane yaa qafla idinku jirtay fura laabtiina fura ilaahay waa ku dhahay subhanahu wa ta'ala fajtanibu ar-rijsa min al-awthan wajtanibu qawl az-zur ya war awthanta isanamyada ka fogaada al-aabudisa gaalida baa la hadlay wajtanibu qawl az-zur كفوا هذا الكبنتا يمرخاتيك بنتا يمشاهدة زوركا قول زوركا وكفوا هذا إذن كون حاران تكون إنسان دت حوله ناتكون عيسان إلهي ناتكون عرقلين إنسان إبليس ناتكون فرحة قلين إنسان كفوا هذا وادنتيني كفوا هذا وادنتيني كفوا هذا دأباتين برين وضماني بل حاران تاعد قادتي أظن العون المهاجي سينين أيات لمن كريسا إمسا كل مت عذابك إلهي يسك إلهي والإلهي على عيارنا إلهي لا لم عيار إلهي وركي سالقاتها أدوماتهين هيدا كم وقت أدون نمذ وح مقلة أدون نمذ هيدا كم وقته داية مخمر خاتب بين النمذ داية يحولها بين تكون إنسان داية والأطرة لفسديهن أطرة واتسوق اللوعتين ماذا حباد عدادي الكيبا كداتي واد إن دباشين وردوان قبري ما تقلسان اسك إلالية وحارانت إي مرخات بين الله إي محاكمت أتاقنتين اسك إلالية اسك إلالية دولتنا كوان رنتي وحان إيه لها كوان حبس ميشو ذي إن لو وذا حيروه كي كسو الدوا حضلانا لا لحيرو واجب لكن دولة أود لها داني يجرين والله جهنم لغو حرحرايا والله وحان هو ما إذن هو بالدولة إذن قبانيسو أما إذن حريسة أما ماركتا أمد إذن كعيلينيسي لكن وحان إذن هو وجهنم حرضا إبليس يا إبليس وجوه الرأي وحل الجلينا حرضا إن تكون جبنيسان أو تكون جماريسان أو تكون واريسان إلهي هلكا ومن دعيركيني كسليو أيان إذن هو حتى إذا كتوبت كيني والله والإلهي كبقى والظلم الجوجية ظلم الجوجية والظلم دولالك عليا هاد مني أضور دول هايستا هاد مني إيك حبيبك كسلي صلى الله عليه وسلم واك او دحايو لبا روح او دحال اسكو هيستا دول ما هوا دحال اسكو هيستا ايا او يمني صلى الله عليه وسلم انت اسكو مروايين نين مسكينه ايا دحالكي اولها وحبوبي نين افتهن ظالم يا هامان هلكا الهي ماركتاي دليلي ايا كدعي وحو يرونيو انا له ايملهد أتقنا رسولك إنوجي صلى الله عليه وسلم ماشي بعدي وأفتهن وين ظالم كنا هو مسكين كي مسكين كحقيسي وشيء جنوي وحنا برهان إيه ما هيستو صبر لوجو إنه وراق وما هيست مرخاتين وكين سوي لكن حقيقة استقال دولكا كي كلنا وكنا وحجدي سي برهانتي سي صبر لوجو دي سي وراقي سي وحيونا ليس مديسي يا إمرخاتي وحيو دنبو إسو كين سنايا يا لو قوينا يا محكمة حق وحي أولا هاي نك عدين هايستون بالو قوينا حتى هدوسا الله حق إلهي بالو داينا يا ربط مدعه محاوعي حبيبك صلى الله عليه وسلم أنك ظواهر كدوشا سكوري يوحي عديما بانو حكونا وأنو قفكي سسينا لكن وحي قدها يا يسيد أرنت حقيقة أي تهي حقيقة إلهي أنا يا حقيقة ما يا حقيقة الله حكوماي
markuu u gooyay kii daalimka uu siiyey ayaa la soo baxay waxa muunan dhihin markaa xabiibka sallallahu alayhi wasallam wuu soo baxay banaankii bay isku qabsadeen ninka dhulka ninka iskale dhaxalka waa nin ma sha Allah ilaahay iimaan siiyay wuxuu yiri horniya u dhageyso dhaxalkan uu xabiibku ku gooyay xabiibkayga sallallahu alayhi wasallam ya wuxuu kuugu gooyay waa beentaada waa afdheeridaada iyo aftahannimadaada waa waraaqahan xaaraamta aad sidatid ayuu kuugu gooyay laakiin adiga waad ogsoon tahay anna waan ogsoonahay ilaahayna wuu ogsoon yahay dhaxalka ina aniga leeyahay ee waxayga iska sii kana uu leeyahay warayga tag rasuulkaabi ii gooyay kanaaba jaa wuxuu u maleeyaa rasuulka gooynta uu gooyay sallallahu alayhi wasallam inay u xalaaleynayso waa sida inta badan dadkeenu wax maqla ay u haystaan maxkamad ba hadii laga soo baxa oo loo gooyo oo ay u shaabadayso sida inay ugu xalaaloobayso abadan xabiibkaaga sallallahu alayhi wasallam ayaa dhahaya markuu buuqii maqal u soo baxaya wuxuu yiri midkiin ba laba idin kamida ii imanaya waxbay isku haystaan mid baa xaq leh laakiin wax ma goosan karo daliil ma wato midna wax ma laha oo waa dhaalim oo waa tuug laakiin daliil buu wataa markaasaan kii daliisha wataan u gooynayaa laakiin anaga dhaahirkum baa xukunaa xaqaa'iqda ilaahay baa haya oo xukumaya laakiin qofkii aan u gooyo xaq walaalkiyow aad u dhageysta dadka dhulka dhacow rasuulkaagi weeyaan xadiisku waa saxiix sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii aan u gooyay xaq walaalkiyow gooynta aan ku gooyay ku xalaaleyn mayso ku xalaaleyn mayso gooynta aan ku gooyay bal waxaan ku gooyay waa gabal cadaab qaado ama ka tag warku waa cad yahay wallahi warku waa cad yahay warku waa cad yahay haddii xabiibkii uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waxa aan ku gooyay qofkii xaq walaalkii aan siiyo sabar looga iyo waraaqo iyo maaragtay aftahannimo uu ila yimid aan ugu gooyo gooyntaydu ku xalaaleyn mayso dhulka iyo dhaxalka ku xalaaleyn mayso ee waxa aan ku gooyay dhul maaha ma aha dhaxal maaha waa gabal cadaab ama qaado oo cadaabna ku gal ama ka tag تأمر يا وركاس يا حديث صحيح إلهي إنه كبخنا والله إلهي إنه كعبسن إلهي أينه كبخنا مركن نكن مرخاتي بيانا لها شهادة الزور كماشي لفر لي وحيرك على $20 يكون $10 كو قادنا يو أضو داء هدنا داء إلا أننا يرى وحالي والأرض كتك وحبو سوسي لكن قضي وايلو عريستي أو تصبح دار وليبا هدنا يا إنه مال برخاتي بيانا لك السمايو إذا الكين وأكسونتين لصعدوا وحن كهض ليه يا إن والله يستاقوا مال رسولك إلهي وحكوا ليه واجتنبوا قول الزور كفوا هذا قول الزور شهادة بينتا مرخاتك بين على ولقا حنقونين آبها هدو يهي واحد للك دعي كان لقد دعيانا او يهي قال وقال اوغو معها مسلم مسلم معها وقال آبها دي حول اسكو قبطان قالك اولي يهي مرخاتي لقو كينو حاد سمينيسا آبها واتكو مرخاتي فري آبو للك مليهد نين كان قالك هاي اسكالو انا دهدار إلهي باكو فراي سدا اعدلوا هدي نفس الدين الله كدغه قراب دين الله ابها اي والدك الله كدغ ابها مع عذاب كاعل اسكام عليك وانسان isagana dan waxay ugu jirtaa inaad ku marxaati furtid oo aad ka dhicisid oo aad u diidid inuu san qaadanin oo aad u diidid inuu qaato dhulka dulmi inuu ku qaato u diid markaas aad tahay nin fiican oo Ilaahay jecel yahay hooyada u diid haday gar daran tahay dha joog hooyo waad gar daran tahay hooyo joog dhulkan waa cadaab todobada dhul ba wallahi hooyo lagu goyn
aad goosanaysaa aakhiro hooyo joog dheh waa haddaad hooyadaa jeceshahay xalaal lagugu dhalay joog dheh aabbaha haddii maxkamadda isku qabsadaan aabbaha iyo cadowgaada hadday isku qabsadaan maxkamad oo aad ogsoon tahay aabbaha inuu cadowgaada ka gardaran yahay ku markhaati fur maaha in lagu yeero anaa ogdhe aabbahay waa dhaalim aabbahay iyo hooyaday waa dhaalimiin ku dheh maxaa uga baqaysaa cadaaladda waxaa la rabaa adiga dhanka cadaaladda aabba xaggiisa ha marin cadaaladdaa lagaa rabaa dhankeeda inaad martid cadaaladda ciyaar maaha wax la heli karana maaha waa waxyaabaha sifooyinka lagu doorto rususha weeyaan rasuul aan cadli aqoon oo aan caadil ahayn ilaahay rasuul kama dhigo imaam caadil waa taqaanaan waa wuxuu ilaahay ugu jecel yahay imaam caadil manaabir ayay fadhiyaan oo ilaahay dhinaciisa ah allahu akbar harka ilaahay bay harsanayaan war cadaaladda shay yar maaha weligaa cadaaladda xaggeeda mar hadduu aabba hooyadaad garta leeyihiin sii haddaysan lahayn ka celi unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma hadduu dhaalim yahay gacanta qabo hadduu madluum yahay u gargaar maxaa damiirkii naga qaad wax walba waa reer hebel iyona hebel qabiil hebel ma adeerkay ma walaalkay ma ninkaa ciddayada ah ma kaa war ilaahay ka baqa waxaan waxba dhinac qabri idinla geli maayaan ya intay ku kaxeeyaan markaad dhimatid laba mitir kuu qodaan caro kugu shubaan waxa ugu horeeyo dharkaaga xoolahaaga qaadanaya waa ciddaada waa qaraabadaada maxay kuu taraayaan ay kula tahay war ilaahay ka baqa cadaaladda jira la jira cadaaladda ha guulaysato la jira cadaaladda marka odayaalkan daada ah ee meelaha taagtaagan bedadka la kala dhacay markhaatiga u ah ma kuu markhaati fura maxaad i siinaysaa wax ii laab wax ii dhib anaa markhaati ah anaa dhaar maraya eeg ya ilaahay rasuulku wuxuu lehy sala allahu alayhi wasalam alaa unabiukum waxyaabaha markay khatar yihiin oo ummadda ay halis u tahay rasuulka kama sugi jira sal ly slam saxaabadu inay weydiistaan laakiin isagaa ula soo degdegi jiray khatar walba meel walba ummadda ay khatar uga imanayso wuu awdi jiray sala allahu alayhi wasalam ku salli xabiibkaas naxariista badan ee raxmada badan intuu u yimid bu wuxuu leeyahay alaa wuu dangigaa saasuu u fadhiyaa markaa iyada ah saxaabadiisuu hor fadhiyaa garabkaasuu ku tiirsan yahay alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir saddex jero wuxuu leeyahay war kabaa'irta muubiqaadka dembiyada waaweyn ee ugu waaweyn wax ilaahay dembi keenay kuwa ugu waaweyn mid kamida ma idiin sheegaa dembiyadaa qaar kamida ma idiin sheegaa ma idiin sheegaa markaasaa waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah rasuul allow noo sheeg rasuul allow markaasaa wuxuu yihi alshraaku billah ilaahoo loo shariig yeelo ilaah oo aad ilaah garab dhigtid xaqii ilaah oo aad qof kale siisid heyrkii aad siisid ilaahay xaqiisa waa la yaqaanaa kitaabkan qur-aankana waa ka buuxaan sunnadana waa ka buuxaan culimaduna way inoo caddeeyeen ya ilaahay xaqiisa in aad siisid heyrkii inaad siisid ya heyrkii ilaahay waxaanan ahayn in aad siisid ma aha yani shirkiga sanam loo sujuudo un ma aha ilaahay xaq buu leeyahay ilaahay xaq buu leeyahay uu nagu leeyahay inaga in xaqi ilaahay uu lahaa heyrkii la siiyo shirkigu waa kaa noocuu doona ha ahaado ha yaraado ha weynaado ko ka labaad waa cuquuqu lwaalidayn iyo hooyo iyo aabbo labada waalid oo caaq lagu noqdo caasi lagu noqdo iyaduna waxay kamid tahay waxyaabaha waxay kamid tahay ilaahay uusan la sugin aakhiro ciqaabtooda oo adduunka qofka loogu keeno oo loogu soo dedejiyo ayay kamid tahay ya waxyaabaha lagu soo dedejiyey ciqaabtooda adduunkay kamid tahay iyada iyo dulmiga waatan caawaan ka hadlayo dulmiga ah iyo cuquuqulwaalideynkan eeg labadaas waa labada ilaahay qofkii ku dhaqmaa ku sifooba ciqaabtiisa uu adduunka ugu soo dedejiyo qabla alaakhira ilaahay hay naga fogeeyo ilaahay dhaalimiin nagama yeelo caaqulwaalideynna ilaahay nagama yeelo siaan ugu caasinaynaa waalidkii ina dhalay
waalidkii ina dhale hooyo iyo aabbo, khaasatan hooyo macaan see loogu caasinaya. hooyadii uurku nagu siday 9 bilood, hooyadii maalinkii ay dhalaysay yaa yani qaylideeda la ogaa isay u cabaadaysa, xanuunkii qabtay maalinkii uurka hooyada aad ka soo baxaysay, xanuunkii hooyo qabtay. qaar waa u dhintaan xanuunka, qaarna waxa waaye dee waxay uga dhib badan tahay, uga sii xanuun badan tahay saacadda aad soo baxaysid 9 bilood ay uurka kugu siday. markaasaa 2 sane ka dambaysaa uga sii daran, ay joog iyo jif bay u diidaysaa nafsadeeda yaa, oo ay dhabtee ku saaraysaa, ku nuujinaysaa, dhacaankeedii aad miiranaysaa haddana, oo ay maaragtayay eeg hooyo ay ma seexato ilaa aad seexatid, ma nasato ilaa aad nasatid, ma cabto ilaa aad cabtid, ma cunto ilaa aad cuntid, ma jiifsato ilaa aad jiifsatid, yani ma raaxaysato inta ilaa aad raaxaysid. wax walba adiga ku horumarinaysaa. inteena badan maanta ma loo ogyahay waalidka? waalid baa ku noqday da intay noqdeen ayay yaryaraadeen, waxay gaareen cunug 2 jir ah sidiisii oo kale. caaliyadii xataa iskama celin karaan. maanta dhan waa sidaas, saasay leeyihiin. caaliyadii baa daadanaysa, qoortii xataa ma soo ceshan karaan. waa waalidkii adiga ku dhalay weeyaan, waa hooyadaa weeyaan, waa aabbaha. ma soo ceshan karaan, eeg qoort ma soo ceshan karaan, saasay u jifaan. ma sariir xariir ahay ku jiftaa hooyada? wallahi kuma jifto. waxay ku jiftaa dhul bay jiftaa, dhulkaa u sariir ah ya, dhulka ayaa. ma dirac $300 ee hooyada xiran tahay? ma xirna. mara baati ah oo jeexjeexan aad u wasakhaysan ya ayaa ku caddaatay, jeexjeexan tahay, waa baati, waa wasakh, way ku caddaatay. jirkeeda xataa ma wada asturaysa. dhulkaasay fadhidaa hooyo, qoortii waa qalloocan tahay, caliyadii baa daadanaysa. wax u soo celiyey rabtaa, wax ka tirtiree rabtaa. xageed joogtaa adiga? ilaahan kuu dharshay. laa ilaaha ila allah. hooyadaa sidaa ah ilaahay badan ku dhaariyey. waad ogsoontihiinoo waa taqaanaan, qaxootiyaday joogtaa, dhulkeenii bay joogaan, ceelasha biyahay joogaan, degmooyinka iyo tuulooyinka ay hooyadaas ku nooshahay oo ay joogtaa. hooyada aan tilmaamaye ilaahay badan ku dhaariye, aaway ubadkii xooggeedii qaatay? aaway wiilka 20 jirka ah ee hooyadaa miirtay aaway? qaatay araggeedii, qaatay maqalkeedii, qaatay midabkeedii qurxoonaa, qaatay timaheedii madoobaa, qaatay xooggeedii. aaway kay ku soo rafaaday? aaway Orobbuu ku raaxaysanaya America sooma? America iyo Orobba ayuu ku raaxaysanaya. hooyo kale oo sidan awaayeel ah ayuu u qabaynayaa sooma, oo uu ilaalinaya. aaway gabadhii ay ku soo daashay hooyadan? aaway hooyadan qoorta soo ceshan la, dhararka daadinaysa, hooyadan xanuunsan, hooyadan biyaha wax siiya la, hooyadan afka wax ugu rida la, hooyadan wax u qabeeya la, hooyadan dharka wax ka bedela la, arratira la. hooyadan yaa aaway gabadheedii? aaway waa kuwan maalin walba culimada su-aalaha soo weydiinaya sooma, dhahaya meel daarulmusiniin ayaan oo Norway iyo Oroba aanu ka shaqaynaa, dhahaya shaqadan ma xalaal baa mise waa xaaraan? oo maxaad qabataa? oo nin baan u qabeeyaa, hooyan waayeel oo gaalo oo la soo tuuray, ilmaheedii soo tuureen ayaan u qabeeya, oo aan u dhaya, oo aan u masaajeeya, oo aan dhar u xira, oo aan bambar u xira, oo aan carfiya, oo aan socodsiiya, oo aan hordisiya, oo aan hoobayo, oo aan dhaha, oo aan seexiya. war sow gabadha taa maaha ya? markaas kadib ay weydiinaysaa lacagtan aan qaato ma xalaal baa mise waa xaaraan? waa xaaraan. yaa weydiinaysaa? yaa ku xalaaleyn karaayo? hooyadan miskiinta eeg,
وكوي اللي يري فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكوي اللي يري واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قربك أرارعي بالو يري انت انك سيوح لغوغو شيغا أرارعي الله كلها يا قربك أرارعي يعني كيغري ويان كيغري قربك رارعي انت وا كيغري هذلك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هعنانني نالو يري هدنا يا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هعنانني هذا الحين هديهم بالويري ودعي هذا الوناكسنده قربك أرارعي كيغري حنبار كترتر دريركا ككعبوركا كبدل مرضى كدقو وفيرين اي ماركتا افكو واحد عبيتان عنسي اوركيدي بوحي وقبيه سليد امري مساجيه تنا كاغا باهن اناد مساجيsid سوما hooyadan way hooyada u baahan masaajo tan way tan jannadaadii lagu geliyay tan way tan xoolaha xalaasha agteeda lagu dhigay. ها كوا واحد كسو قادتي والله وحاران اكتود هداد كل متنا والغو يابا ور الهي انو كبقنو موضوع يانو كديرانين وحو يري حبيب كان صلى الله عليه وسلم ما اذين شيغا باكبر الكبائر ما اذين شيغا هذا اللي يري نو شيغ رسول الله مركاس وحو يري الاشراك بالله والهي لو شريك له حقيسي انت لا قادو غير كي لا سيو نعمديسي انت لو دافسدا غير كي لو شكريو. كلبات وعقوق الوالدين وكان عاقه والدكيس عاقه كن نقضي كاويان وان ذي شيغي عقوبده لبد الروح اللي لو سو ددجي مدكود ويان عقابته ادونك لو كينا مرنبا عقل والدين ما غوليسناي مرنبا ما غوليسناي عقل والدين مرنبا ما غوليسنايو كو الدنيا اخره وكو ماركتاي وكو خسارايا كسدحات انتو نشيغن ايو حبيب صلى الله عليه وسلم نعب وجي فيه وسوفري سنايا مركاسو لي الا وقول الزور الا وشهاده الزور. الله وحجري كسدحات يا الدنبيد ugu waaweyn waa marxaati beenaalaha hadal beenaalaha kan markuu maaragtay hadlayaba been un maaragtay ku hadla kan marxaati markuu furayo aan cadaalad raacine been maaragtay balaayo ku fura oo been sheega oo marxaatida ka been sheega ka weeyaan la ilaaha wuxuu ku celcelin ilaa ay saxaabadii dhaheen laytahu sakat alla mu'amuso alla maxaan u weydiinay alla mu'amuso allahu akbar. marka xageed galaysaa waa yeel baa tahay waa 60 jir 70 jir baa tahay waad dhimanaysaa caawa laga yaabaa inaad dhimatid galabtoo kalena been baad marxaati ku furtay wallahi ninkaanaad dhulka iskale baad tiri ay aw dameerkii ilaahay inuu ka baqo. waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal xadiis uu werinayo xadiis muslim ah oo uu ka werinayo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu رسولك الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من سرق منار الأرض. حديثك ومسلم ويا لعن الله من سرق منار الأرض. إلهي وحول لعنذي أما الله لعنذو يا قفكي حذا منار الأرض. منار الأرض وحويان على مضها دلك الله يشي يحدود دلك أولي هي يا تربية دلك قفكي حذا إلهي هاللعنذو يعني نبى دول إسكاله دول كيسي منار وليه يعني وحي على مدو ليه دربي أفرقيسا أيو ليه وأو أذنيه كجيل باو ركبه مركاسا حقاسا أنت لقى صورت دغحانتي وحي بالا باللقيسانا يا محلو جيدا إن لو حد قدوني كان دول كيسي حولي مركا لقاته أم أوديه لجروه أيا لصوت دركايا إيك ماشي حدود أهيد درسكي با صوت دافايا ومنار الأرض كاويان كان لشيغايا حقاسا لوغا سو دركايا انتا لوغا سو دركايا نينكي غوريغا 20 متر سكوير ka ahaa ee xataa u sawirnaa markuu yimaada waaba buul yar waaba meel yar oo ma aragtay dhowrtaa ka ah
aawey inta looga soo turka inta calaamadihiisii dhamaa xuduudadiisii afarta ahaa oo idilba waa baaba'een. qofka xadaa xuduud qofkii xadaa ama manaar alardi dhulka calaamadihiisa qofkii baabi'iyaa oo tirtiraa ilaahay wuu lacnaday. maxaa wacay waa bilowga dulmiga weeyaan. markaad calaamadihii dhulka deyrkiisii xuduudiisii aad qaadatid waxaa ku xiga waa maxay waxa ku xiga waxa ku xiga waa inaad dhulkii goosatid oo aad dhacdid. eeg meel lagaa joojinayo fiiri ninkii manaar alardi qaadanaya oo dhacaya ee derbiga marka horeba saa u taabanaya ama ridaya ayaa la yidhi waa malcuun. kan kale maxaa u malaysaa ilaa iyo 7 dhul baa loo goynaya isagana. ilaahay aynu ka baqno, ilaahay aynu ka baqno, ilaahay aynu ka cabsano. dulmiga aynu wadnaa wallahi waa dulmi aad iyo aad u xun weeyaan. cajalka ha la gudbiyo, dadka walaalaha ha la gaarsiiyo, wixii caasi ay wixii kale ee dhaalim ahba ha la gaarsiiyo. ilaahay haydan dhowr. ilaahay waxaan ka baryayaa, ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed ee wax kala dhacay ilaahay rushdigeeda ha u soo celiyo. dhulalkan la kala dhacay ilaahay ha u soo celiyo rushdigoodii dadkan dhacay. dadka laga dhacay dhulalkooda Allah u soo celiyo. kuwan kalena ilaahay ha tuso dulmiga ay ku jiraan xumidiisa Allah ha tuso. ilaahay ha garansiyo inay dhulalka soo celiyaan. ilaahay ha garansiyo inay dhulalka soo celiyaan. qof walbo dulman Allah u gargaaro. ilaahay waxaan ka baryay adduunkan gargaar waa laga waayay. ya adduunkan adduun dulmi ayuu noqday, gargaar waa laga waayay. ilaahay waxaan ka baryay qof walba oo dhul laga qaaday ama la dulmay si uun loo dulmay dulmiga Allah uu soo daayo. dulmiga ilaahay ha uga soo gargaaro. ilaahay dulmiga ha uga celiyo. ilaahay dulmiga ha ka qaado. ilaahay dulmiga ha ka qaado. inta xanuunsan Allah caafiyo. انت حنوسنا الله عافيه. انت حنوسنا الله عافيه. انت حرن الله سو دايو. انت مقن الله سو ururiyo. انت ubad laga qaato ubadka Allah u soo celiyo. انت lagu soo socdo Allah ka difaaco. runtii in badan baan diintii leexinay oo aan anagina ka fogaanay. ilaahay waxaan ka baryay diinta iyo tubta toosan Allah nagu soo celiyo. ilaahay tubta toosan nagu soo celiyo. dhalinyaradeenna ilaahay waxaan ka baryay ilaahay dhalinyaradeenna mustaqbalkooda ha hagaajiyo. dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan ilaahay ha dhowro. ilaahay ha asturo. ilaahay intaana guursan guur xalaal Allah siiyo. intaana guursan guur xalaal Allah siiyo. intaana guursan guur xalaal Allah siiyo. guur ay ku dhowrsadaan oo cibaadada Allah siiyo. mid ilaahay ugu dhawaadaan Allah siiyo. mid ubad ku helaan Allah siiyo. inta guursatay ee aan ubad helin ubad saalixiin Allah siiyo. ilaahay mustaqbalka dhalinyaradeenna ha ifiyo. in badan baa mustaqbalkooda mugdi ku jiray. ilaahay ha ifiyo. ilaahay mustaqbalkooda ha ifiyo. ilaahay mustaqbalkooda ha ifiyo. inta dhibka Allah ka qaado. ilaahay waxaan idinkaga baryay adduun iyo aakhiro wanaag. dhulkeeni hooyo ha loo duceeyaan liilaawin. dhulkeeni hooyo waa inta Soomaaliyeed degtay ilaahay barisamaadka ha ugu soo celiyo. amnigiisa amaankiisa Allah sugo. amnigiisa amaankiisa Allah sugo. amnigiisa amaankiisa Allah sugo. dadkiisana qalbi qof kaliya Allah ka yeelo. qalbi qof kaliya Allah ka yeelo. qalbi qof kaliya Allah ka yeelo. ul idirkeed Allah ka yeelo. ul idirkeed Allah ka yeelo. ul idirkeed Allah ka yeelo. adduunka waa laba bari waa laga tagayaa. ilaahay nagama saar adduunkan ilaa isagoo naga raali ah maan. hadeenu ka tagna jannatul firdaws Allah isoo ka geeyo xabiibka Ciisa sallallahu alayhi wasallam. astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.